Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada mawduucana maanta waxaan ka hadli doonaa 5 siyaabood ama 5 arrimood ama 5 dabeecadood haddaad leedahay aad guuleysanaynin mise guusha ka hor istaagan. 5taas arrimood isku day inaad ka fogaatid si aad u gaartid guul noloshaada. Fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqatay channelkeena, subscribe star, furo gambaleelka si aysan kuu dhaafin casharada si maalinle ah u soo gelino. La wadaag asxaabtaada, waadna ku mahadsantihiin dhammaan. Midda koowaad, ku celcelinta hal shay. Qofka inuu ku celceliyo intii loo baahnaa in ka badan hal shay. Hal shay waxaan ula jeednaa waxay noqon kartaa shaqo, waxay noqon kartaa waxbarasho, waxay noqon kartaa maxaa la dhihi jiray wax noloshiisa ku saabsan ay noqon kartaa. Marka hal shay aad markasta ku celceliso waxay ka mid tahay calaamadaha guuldarrada. Marka maxaa loo baahan yahay? Shayga waxaa loo baahan inaad isbeddel aad la imaatid. La imow isbeddel. Isku day inaad wax ka beddeshid si aad nolosha guul aad ugu gaartid. Midda labaad, ha ka cabsanin guuldarro. Dad ayaa jiro guuldarro ay ka cabsanayaan darteed waxay rabeen ay u qabsan karin. Marka ma la rabo dadka noocaas. Taasi waxay ka hor istaagaysaa inaad nolosha guul ka gaartid. Marka isku day inaad guuleysanaysid. Guusha inaad isku daysid inaad gaartid. Marka lama rabo inaad wax la gaarin, mustaqbal aan la gaarin, inaad cabsi aad ka qabtid aad guuldarrada laftirkeeda kugu keento. Waxay dhahaan guuldarrada laga baqo, laga cabsado, ayada laftirkeeda ayaa guuldarro ah. Marka maxaa loo baahan yahay? Ha ka cabsanin inaad guuldarraysanaysid. Qof kasta oo maanta guuleystay guuldarro ayuu soo maray. Marka maxaa kula gudboon? Isku day inaad guuleysatid. Waad guuleysanaysaa, ha ka cabsanin guuldarrada. U bareer guuldarrada. Waxaad gaaraysaa inaad guuleysatid. Tusaale ahaan, dad ayaa jiro ayagoo imtixaanka gelin markay maqlaan waxaa la baranayaa caafimaad. Caafimaad ma baran karaan xisaabteeda iyo kooskaas waa ugu adag yahay. Marka taas waxay ka mid tahay inaad guuldarradii aad ka baqaysid si aad u gaarto guushaada. Marka ha ka baqin guuldarrada. Midda saddexaad, waqtigaada ku dhuminin baraha bulshada ama social media. Waqtigaada qaaliga ha ku dhuminin social media. Dad badan ayaa jiro waqtigooda inta ugu badan ay ku dhumiyaan baraha bulshada. Waxaa laga yaabaa 12 maalinkii qofka inuu ku dhumiyo 11 saac ugu yaraan 10 saac waqtigiisa inuu ku dhumiyo baraha bulshada. Dadka horumarka gaaray adduunka, dadka taariikhda dhigay, dadka nolosha meel ka gaaray, waxaa la sheegay inay waqtigooda ku dhuminin baraha bulshada. Waxay ka isticmaalaan inta wanaagsan kaliya iyo waxay ugu baahan yihiin. Muxuu inaad baraha bulshada la isticmaalo dembina ma ahan, laakiin waxaa loo baahan yahay ka isticmaal inta wanaagsan oo ku caawinayso, inta wax ku tarayso ka isticmaal kaliya. Waxaad samaysaa baraha bulshada sida waa platform aad u weyn. Waxaad ka heli kartaa waxbarasho. Waxaad ka heli kartaa maxaa la dhihi jiray inaad wax ganacsi ku samayso. Laakiin adoo waxba ka faa'iideyn inaad baraha bulshada maanta 24 saac ku jirtid. Taas waxay ka hor imaanaysaa ama ka hor istaagaysaa inaad noloshaada horumar ka gaartid. Inaad nolosha horumar ka gaartid ayaa ka haysa. Marka iska ilaali inaad waqtigaada qaaliga aad ku dhumisid baraha bulshada bilaa faa'iido ah, wax faa'iido kuu lahayn. Marka maxaa loo baahan yahay? Only inaad ka isticmaalno inta wanaagsan, inta waqtigaada aad ugu baahan tahay ama u isticmaal dhanka wanaagsan. Dadka waxay dhahaan social media ama baraha bulshada waa mindi laba af leh. Waxaad u isticmaali kartaa dhanka wanaagsan ama dhanka xun. Marka isku day markasta inaad u isticmaashid dhanka wanaagsan. Ka isticmaal kaliya dhanka wanaagsan. Numberka 4, weligaa saaxiib hala noqon ama rafiiq hala noqon dadka hiigsiga lahayn. Ka fogow dadka hiigsiga lahayn. Dadka hiigsiga lahayn maxaa ula jeednaa? Dadka negative-ka ah. Dad badan ayaa jiro negative ah.
marka dadka negative-ka saaxiib lala noqdo waxay ka hor istaagaysaa inaad nolosha guul ka gaartid ama horumar ka gaartid. marka qaabkee ula dhaqmanaysa dadka negative-ka ama dadka aan higsiga lahayn. dad ayaa jiro asxaab aad tihiin, waxaa laga yaabaa markaad dhahdid maanta waxaan rabaa inaan horumar gaaro, inaan isku filnaado, inaan ganacsi aan bilaawdo, waxay ku leeyahay ganacsi iyo xilligan waxaa inaan jaamacadeyda aan dhammaysto, aan noqdo qof wax istara. markaad ku tira wuxuu leeyahay xilligan may wax la bartaa, waxbarasho qiimo ma laha, hebel baa bartay wuxuu ku haya ma laha. marka niyad jab ayuu kugu keenaya. marka dadka markasta niyad jabka iyo horumarka rabin isku day inaad ka fogaatid. dadka noocaasi ah waxay ka hor istaagi karaan inaad noqotid qof nolosha guul ka gaaray. midda shanaad, weligaa ha rajo dhigin. weligaa ha rajo dhigin. qofka inuu rajo dhigo waxay ka dhigan tahay inuu guul daraystay. marka weligaa naftaada ha ugu sheekeyn inaad guul daraystay, inaad rajo dhigtay. marka maxaa loo baahan yahay, haddaad rajo dhigto, haddaad naftaada ugu sheekaysa inaad rajo dhigtay, aad gaari karin, waxba qabsan karin, waad guul daraystay. marka si aad u guulaysato waxaad u baahan tahay inaad naftaada u sheegtid inaadan weligaa aad minaha rajo dhigaynin, weligaada aad rajo dhigaynin. marka waxaa loo baahan inaad waa never give up, waxay dhahaan never give up. waxaa loola jeedaa weligaada maraad minaha waxaa laga yaabaa inay wax bilowday. for example, tusaale ahaan waxaad bilowday waxbarasho, waxaa laga yaabaa heerkood jaamacadda aad ku dhacday, mar labaad ku dhacday, mar saddexaad ku dhacday. isku day inaad sheegi hadda aad ku dhacday mar kale inaadan ku dhicin. dhinac kale u imo, ma sheegin hal angle aad ka fiiriso. koosaad samaysay waa kugu adkaaday, waxaa la rabaa inaad mid kale kuu fudud qaadid si aad ugu guulayso nolosha. ma inaad wax halka sheegi inaad minaha maha nolosha waxay leedahay dhinacyo badan ay leedahay.